بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo arrimo ku saabsan tirakoobka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan wax u sheego ciidanka Soomaaliyeedna wax u sheego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu abuuran yahay oo loogu talagalay inuu ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyo khatar kasta ama gudaha iyo dibadda mid kasta oo noqotay ujeedada loogu talagalay saas weeye shacbiga Soomaaliyeed marka inuu haysto ciidan uu isku haleyn karo markuu u baahan yahay waxa muddooyinkan dambe intii ciidankii hore u burburay aad dawladihii soo jiray la isku taxallujiyay in la helo ciidan tiro kooban oo nambarkiisa la yaqaano oo muayyan ah oo mustaqbal loo sameeyo ama xero loo dhiso ama si mataqaano hub loogu gado markasta la og yahay nambarka tiradiisa intuu la egyahay maadaama systemkii hore uu burburay iyo wixii jiri jiray ay burbureen waxa dhib noqotay marka sidii tirakoobkii loogu helaa loogu helaa saasoo tahay dawladdu waxay go'aansatay markasta ciidanka in miisaaniyadiisu ay sanad walba kor u sii kacdo oo sanad ka dambe ka sii tiro badato taasoo oo run ahaantii haddaad u qaadid sanadkii 2017 ay uga badan tahay aad uga badan tahay miisaanada 2018 sidaa daraadeed waxaad xukuumaddu go'ansatay in la helo ciidanka in la tirakoobo tirakoobkaas oo amaawiir muayyan ah loogu talagalay in lagu tirakoobo waxaa lagu tirakoobeeya nin kastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan meel bay dawladdu ku ogtahay meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay waxa exception ka ah ama ka madax banaan intaas ninka jiran ee caafimaad darrada ku maqan ninka unitkaas tababarka uga maqan ninka ku dhaawacmay goobtaas ku jiro iyo ninka fasax sharci haysta cidii kale ayada ka maqan goobtii loogu talagalay iyada iskeed u maqan shuruudahana ma buuxiso marka sidaa daraateed waxaa rabaa nin kasta oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la diiwaan geliyay iyo mid hadda la diiwaan geli doono intaba inuu ku fakaro inay waajib tahay inuu joogo goobtii dawladda ugu talagashay hadduu ka maqan yahay oo shuruudaha aan sheegay uusan saddexda qof aan sheegay uusan midkood ahayn fasax sharci uusan ku maqnayn dhimasho uu dhiman dhaawac uusan jirin caafimaad xumo haysan ama tababar dibadda ku maqnayn isaga iska maqan ninkaasna ka mid ma noqon doono hadhowtii maxaa yeelay shuruudda ma buuxiyo saraakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amrayaa in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo lagu adkeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa hore in la marsiiyo markii loo yimaado si loo marsiiyo si uu mataqaan xuquuqdiisa u helo waxaan aad runtii aan ugu bogaadinayaa dawladda Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga iyo xafiiska prime ministerkaba hawshay iskugu xil saareen hawshaas si looga dhameyn lahaa oo ummadda Soomaaliyeed u heli lahayd ciidan la og yahay tiradiisa muayyan ah la og yahay laga warqabo si loogu qorsheeyo miisaanada ay u baahan yihiin hubka ay u baahan yihiin gaadiidka ay u baahan yihiin rasaasta ay u baahan yihiin haddii kale waxaa dhib ah jaangooyada ciidanka ay u baahan yihiin xataa lama keeni karo marka wax yaqaano mala tirada ay yihiin arrintaas waxa way arrin aad iyo aad u baahan oo nin kasta oo askarka ciidanka ku jira uu la rabo inuu ku fakaro wadaninimadiisa inuu ku xaqiijiyo war waxaan waa inaan saxanaa cid noo saxaysa male haddaan annaga saxan marka saraakiisha waxaan ku amraya inay saxaan toosiyaan waajib saaran weeye waa waxay sarkaal ku yihiin waa waxa loogu talagalay ujeedada loogu talagalay kaas waa in la saxo la toosiyo loogu talagalay number muayyana oo la og yahay oo loo qorsheyn karo xuquuq u baahna ama raashin ha noqoto ama mushaar ha noqoto ama rasaas ha noqoto ama gaadiid ha noqoto waxa la wixii sida loogu qorsheeyo waa in la og yahay marka arrintaas saraakiisha waa muqadas bay ku tahay inay fuliyaan waana ku adkeynaya inay fuliyaan waajib nasaaro weeye ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay markaan runta idiin sheego idinkuna waad ogtihiin nabad buu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay waxaa loo baahan yahay in la helo nolol in la helo maxaan ku radaa horumar la helo sida ay ku socono aan ku soconana waxba lagu gaari maayo waad aragteen qaraxa iyo dhibaatada maamulba jooga
ciddii waxaas ka hortegi lahayd waa annaga ciddii ka hortegi lahayd mas-uuliyadda naloo kale annaga wey annagana xaaladda aan ku sugannahay haddaan kusii soconno cidda ka hortegi mayno annaga dowladda iyo shacabka soomaalida waxay noogu talagaleen waa gabnay annaguna lafaayay waa gabayna dhimashada annagaa ugu badan maalin walba marka waxaa loo baahan yahay inaan aada iyo aada uga fikirtaan nin kasta oo soomaaliya oo muwaadine oo u danqanaya shacabkiisa inuu u fikero war mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyadda kasoo baxa war ciidanka laguma soo qasbina adaa soo doontay war markaad soo doonatay ballan baad ka qaaday shacabka soomaaliyed kitaab jaamacaad martay kitaabka jaamaca waxaad ku martay inaad difaacdo dalkan dhabbihii aan ku difaaci lahaan oo sax ahaa inaan ku difaacno waa dhabahaas aan ku talinay oo dowladduna ku talisay weye haddaad ka laaxatid dhaartiina waa jebisay mataqaanaa waxaanad ka hortimid shacabkii rabitaankii ummadda soomaaliyeed shacabkiisi aada iyo aada umahadsantihiin guul baa idiin rajeynaya waa ku kalsoonahay inaad qaadan doontaan amarkayga aadna fulin doontaan aada iyo aad baa umahadsantihiin review noogu samey